waan salaamaya meel kastoo dunida joogtaanba waxaa jiray korneyl la yiraahdo korneyl ujuuka raxmaan oo dalka Nigeria u dhashay ujuuka raxmaan wuxuu goostay gobol u deganaa oo la yiraahdo Biafra dadkiisina uu halaagay naftiisina ugu dambeyntiin uu halaagay oo waa loo xoog sheegtay oo sharcigii baa lagu soo celiyay Biafra waa la soo celiyay oo waxay ka mid tahay dalka Nigeria dad muslimiin ayaa ku noolaa marka jaran ka cuqdadaysan dadkii la noolaa ayaa korneyl baan u jeedaa ujuuka raxmaan ayaa yiri waan goostay marka waxaan rabaa inaan kelmad u sheego korneyl qamuunyo ninkan qamuunyeysanay cadhada Soomaaliyeed hayso inaan rabaa inaan kelmad u sheego wuxuu yiri ciise muxuu yahay ciise wuxuu yahay aniga ku sheegay buug iyo qalin soo qaado saaqid baato kulli fahmaysid ciise waxa weeyaan waa dawlad qaran jira weeyaan waxay dawlad yihiin half a century ayay dawlad yihiin oo dunida iyo laga yaqaana oo calankoodu meel kasta uu yaala sida aniga uu daba yaalo United Nations kana chairman bay ka noqdeen imikana way ku soo socdaan dunida arkayso iyaga ayaa chairman ka noqday ciise waxa weeye dadkan aad xumaanta iyo cadhada ka qaaday ee doonayso inaad sidooda u ekaato oo doonayso inaad sidooda qaran noqoto oo doonayso inaad sidooda sharaf iyo karaamo dunida ku yeelato laakiin adigu ma yeelanaysid waayo kuma socotid sharcigeega iyo nidaamkeeda dadkii kula noolaa iyaad muquunisay ciise waa Soomaali marka labaad waa Soomaali qarannimada ka soko waa dad Soomaaliya dawladda Djibouti Soomaalidu qayb bay kala tahay Soomaalida maamulkeeda qayb bay ka tahay reerka ugu badan ee dhaqaalaha Djibouti qaatay waa reerkaadu ka dhalatay waxa rasaysan yihiin boorka Djibouti bay isdul rasaysan yihiin albaabka ilaa iyo gudaha waxay rasaysan yihiin institutionska lacagta oo dhan iyaga ayaa jooga waxa rasaysan yihiin banka Djibouti albaabka laga galo ilaa dusha sare iyaga jooga waxay rasaysan yihiin maxkamadaha waxay rasaysan yihiin wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda guryeynta ayay sidaa u rasaysan yihiin oo isdul saaran yihiin degaanna kuma leh wayna kugu ixtiraamayaan Soomaalinimo ayay kugu ixtiraamayaan oo dula joogtaad wax wala cunaysa ciise waa kii ku garab qabtay markaad dagaalamaysa jabhada ahayd iyo markii aad soo gashayba afkaaga aad ka sheegaysa oo adiga laha Djibouti baan leerka biyaha iyo mashiinada biyaha iyo kuwa leerka wana siisay markaan soo galay adoo sheegayana ku maqlay ciise waa kaas ciise waxaad cuqdada ka qaadid weeyaan ciise waa qabiilka qura ee geeskan Afrika ka jira ee keligii dawladda amba Soomaaliba ah ee keligii dawladda marka waxaan u maleynayaa inta inaad fahanto ciise waxa ka dhashay ninka la yiraahdo Qalombi oo keligii dawladda Ingiriiska dagaal la galay magaalada Bullaxaar ay dhahay sababtoo ah nin ciise lagu xidhay Bullaxaar gabadh habar wala buu qabay diriceedii googaradeedii buu qabtay uu waan isku dumar baan noqonaya haddaad Bullaxaar gubi weydaan saasa magaalada Bullaxaar lagu gubay Qalombi baa gubay waa nin qura oo ciise waa ka ciise waa kaas ciise waxa weeye waxa ka dhashay Cabdi Dhagayar oo aanu ka soo jeedo ayaa ka dhashay markii la aasayay qabaa'ilka leeyahay qabyaalad baa la aasaya u diidayso wuxuu yiri la aasmaayo qabiilka la aasay ciise buu ku jiraa markaas la yiraahdo markaasuu la aasmaayo ciise sababtoo ah annaga ku nool ciise la'aanti ma noolaan karno uu sharciyay halkaasuu Siyaad Barre u tagay uu sheegay oo anagu waxaan ku noolaa ciise iska warrama ciise xaguu ka yimid ciise ma bariye ciise dhoortada keena ciise ayaa buka ciise uu qolole iyo ciise uu guuray kelmad kastoo nidhaano ciise ku darnaa buu saasa dawladda Soomaaliya ugu ogolaatay ciisaha inay magacooda isticmaalaan iyagu oo hoos u dhaafin ciise waa kaas adiguna wad ogtahay ciise waa kaad warqadihiisa sidata adigu ee qarannimadiisa adigu aad baasaboor ahaan u sidato weeyaan iyo kuwa kale oo kulamada taa weeye ciise laakiin abaalaawanimo kugula tartami mayno Soomaali nacaybna anagu kugula tartami mayno qabyaaladna kugula tartami mayno adiga cuqdad iyo xumaan kugu jirtana cid kula tartamaysa Soomaali ma jirto nin cuqdadaysan baa tahay dadka alla dhalatay ka dhalatay isaaqa ayaad cuqdadaysan tahay
reeraha kale isaaqa cuqdad baad u qabtaa iska dhaaf soomaali kale iyaad cuqdadaysan tahay waxaan maqlayay maalin dhowd adigoo leh doorashada cabdiraxmaan cihra 2 urur buu u yahay musharax markaa taana sharciguma ogol aad leedahay yani gidaar kasta waad xoqanaysaa waad ogtahay inaad tagayso meesha ka tagayso markaa ninkaa xanuunsanayaa tahay adigu dhibaataad ku tahay dadka waqooyiga degan masiibo loo soo diray ayaa tahay qabyaalad iyo xumaan iyo cuqdad la dhex socda waxaa kaloo raba inaan kelmad ka idhaahdo gabadh ooyeysan arkay saaka ilaa xalay la ii soo dirayay oo la idhaahdo safiya tusma gabadhaasi waa samaroon gurigeedii baa la gubay ciil bay la ooyeysay awooddaray la ooyeysay itaaldaray la ooyeysay dumar kaloo boorama ka hadlayana waa arkayaa itaaldarro la ooyay waxa weeye gabadha aad gurigeedii gubteenad qabiil ahaanta u gubayseen gabadhii kale lamidka ahayd ee samaroon hibe maxamed hibe nuura waad soo dhawaynayseenoo waa anigii isku soo waraay ma kala garan karo tan iyo tan waxa u dhexeeya labada fanaanadood waxa u dhexeeya midna gurigeedii la gubayo midna korbadhan loo wado ma fahmayo taas anigu macnaheeda ma garan laakiin qabyaalad baa idinka daraas qabiil baad cadhow qabtaan samaroon la idhaahdo ninkii la odhan jiray abiib waa xidhan yahay waxay idhahdaa xasaanad buu leeyahay xasaanadda ima iyagaa leh xasaanad baa meesha ka jirto waa jabhade ma jabhad baa xasaanad yeelata jabhad male wax sharci oo leedahay ma jirto jabhad male xasaanad iyo waxa hadday xasaanad leedahiin amba dowladi ka jirto way dhowri lahaayeen oo sharciga ayay dhowri lahaayeen laakiin waxani waa jabhad iminka jabuuti dhibaatada ay nagu hayaan ismaaciil uu og yahay laakiin sharciga dowladnimada iyo dulqaadka tolerance waxa la idhaahdo sharciga dulqaadka ayay kuu joogaan iyagoo waxa uu dhibaataa ku haya ciise oo aflagaadada intaa lee ku haya oo weelnaba madax ka ah oo ciidamada madaxa ka madaxda sare ku jira oo booliiska madaxda sare ku jira oo ciidamada xaarsa wadanka jamhuurka madaxda sare ku jira ya ayaan waxba la odhanayn waayo dowladnimadii baa dee qoraysa oo dowladdii bay ka mid yihiin laakiin way ku fogaadeen way nagu fogaadeen oo sharcigii la laabi lahaa dulqaadkani waan soo dhowdaa lafteedu waayo waxaa la yidhi toleransigu hadduu farabato dulqaadka faraha badan leh wuxuu keenaa na'iif marka muuse qaboonya uu nagu qasbaya waxaanaan jeclay markaa ninkii la odhan jiray abiib qabiil ahaan baa loo xidhay qabiil ahaan baa loo xidhay qola ahaan baa loo xidhay waa samaroon baa loo xidhay ninkaas xataa dadka waa loo diiday in la tuso waayo waxaa dhici karta inuu dhaawacan yahay inuu gacan ka jaban yahay inuu nabarka madaxa wax ka qabo iyo inuu dhintaba intaba ma ogola waa la diiday in dadka la tuso gabadhaa samaroonna oo adiga arkaya sida loo galay ee gurigeedii baa lagu gubay marka waa qabyaalad socota waa maamul qabiil ka dhisan weeyaan oo ummadii kale waxba u ogolayn ninkaa waxaa lagu qabsaday samaroon baa tahay weeye qabyaalad weeyaan wax kale maa ninkii kale ee la odhan jiray buur madow waad ogaadeen sida loo soo dhaweynayay wuxuu odhan jiray idaacadaha ka odhan jiray musabixi xataa faamilkiisa waxbuu ka sheegi jiray haddana waa kuwii airboodka joogay wasiiradu waayo isagu waa qabiil waa isaaq ninkana waxa la wuxuu yidhi jabhadu waxaanu naqaano uu terrorist baheedo dadkay dilaysa criminals waa rarutiiso dadkay dilayeen intaasaa ninkaa jeelka lagu xidhay waa loo diiday in dadkiisu arkaana dhibaatada uu ninkaasi iyaga ku hayo waxaa ka mid ah haddii uu soo baxana musabixi kolley ma soo noqonayo hadduu xidhnaadana ma soo noqonayo hadduu dilana kasii daranoo ninkaasi haddii uu dhibaato u geystana kolley waa lagu kala tagaya oo awdal state way ka baxaysa halkan oo joogi mayso oo awdal state waktigeedii u gaadhay in la sameeyo dowladdii inaan samaynaa doonaya yaan haddee diyaarunahay waxoodii waa soo dhammayn waxaan ka codsan lahaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle inaan dowladda awdal state ku samayno jabuuti intaana jabuuti lagu samayn anigu waxaan ka codsanayaa inuu cafiyo oo sidii boqor buurmadow loo soo dhaweynayay laii soo dhaweeyo waayo anu caaqalkaagii baana ilaahay baana qaldamin dadkuna intay nool yihiin bay wax isku yihiin dunida ku nool yihiin aakhira haddii la tago waxba la iskuma noqonayo waxaan rabaa inaan ka qayb galo maamulka la samaynayo ee jabuuti lagu samaynayo awdal state inaan ka qayb galo jabuuti imaado waan rabaa marka madaxweyne
wixii igaadale iga kaa soo gaadhay adiga iyo qoyskaagaba inaad iga xafisaan doonaya si aan uga qabi galo maamulka aan samaynayno ee awdal state een kula dagaalamayno maamulkani nijaasta waa nijaas musabixi saylac iyo maxaa gobolka salad inaad tagtaaba dee qalad beed waayo nijaas baa iyaa tahay adigu in la daahiriyaan iyo noqon lahayd haddaad gobolka iminka awdalba waa cagaha waa saarto aan ku arkay laaboon marka meesha tagtaba qabyaalad iyo xumaan iyo naxali baad ka waramayso Soomaaliya weligeed Soomaaliya kuma jawaabin weligeed nin Soomaaliya oo ka hadlaya ma arag anigu waxa iyaga uga dhigan tahay nin ay qaniini ay hadduu ku qaniino dee lama qaniino hadduu ku leefana lama leef waad ka soconaysaa marka iyaga saasaad uga dhigan tahay kii hadlaaba Soomaaliya ka hadlaya marka Soomaaliya macnaheedu waxay tahay haddaad hadal qaado iyo haddaad hadal qaadinba wax macno ay samaynayso kulay looma aha qabown ma aha iyaga macnaha ay ugu fadhida waxay samaynaysaa waxay noqonaysaa qof ay qaniini marka aduu ka hadlayso cid idin jawaabta oo markuu waa kii ninkii muxuu ahaa Faysal wuxuu lahaa yaa u jawaabay Soomaaliya wax u jawaabay ma idinku jira ciro sharaf iyo karaamad buu ku leeyahay Soomaaliya waa nin degan afkiisu degan yahay gacantiisu degan tahay siyaasadiisu degan tahay ma aha nin waalan oo dadka bili aadanka caaya ma aha ciro waa nin mas-uul buu u muuqdaa dhaqankiisu waa dhaqan mas-uul ma aha dhaqanka musabixi iyo dhaqanka Faysal midna toona maaha nin mas-uula Soomaaliyeed buu noola muuqdaa anaga uuna yahayna Soomaali meel kastoo dunida joogtaanba aad baan idin salaamaya